أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalayaal ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala, ilaaha weyn ee ina abuuray, ee adduunyada ina keenay, ee ina karaameeyey, ee inaga dhigay muslimiin, ee ina dejiyey geeska afrika. ilaaha weyn subxaanahu wa tacaala, ilaahaasaa mahadle subxaanahu wa tacaala. ilaaha inoo soo diray rasuul, inoo keena, inoo fasira, inoo macneeya, ina fahansiiya, ina tusa waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey. kitaabkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey ee ay ku dheehan tahay abuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ina abuuray karaamada uu ina siiyey. kitaabkaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xadiis alqudsiga nebigu inoogu sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay ka mamnuucay naftiisa dulmi, innagana dhexdeenna uu ka dhigay in aan isdulmino xaaraan. ilaahaasaa subxaanahu wa tacaala mahadle. waxaan idinka codsanayaa inaad ku sallidaan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, ilaahay inoo soo diray ee inoo keenay risaalada cajiibka ah, kitaabkaa qur'aanka ee cajiibka ah, fahankaa waasic ee ballaadhan ee cajiibka ee ku xidhan, isku xidhaya adduunka inta la joogo iyo aakhirada isku xidhaya. nebigaa cadiimka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku salliyey waqtigu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. waxaan idinka codsanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku sallidaan walaalahay. allahuma salli wasallim wabaarik calayh. waxaan rabaa anoo ka dhaqaaqaya risaalada rabbaaniga ah ee ilaahay ugu tala galay adduunyada intaan joogno inaan ku noolaano, oo aan ugu noolaano si xor ah, oo aan ugu noolaano sida aan jecel lahay inaan adduunyada ugu noolaano, oo ay xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey inaan ku wada noolaano, oon adduunyada intaan joogno ee nafta aan hayno inaan ku wada joogno. waxaan rabaa in aan dhowr fariimood aan halkan ka diro marka laga hadlo arrinta aad arkaysiin ee maanta ka dhacaysa jabuuti. waxaan rabaa fariin inaan u diro fu'aad yuusuf cali, iyo qoyskiisa wanaagsan, iyo waalidkiisa qiimaha badan leh, iyo saaxiibbadii inta dulmiga diiday. waxaan rabaa fariin inaan u diro culummada reer jabuuti siday u idil yihiin, shacabka reer jabuuti oo dhan siduu u idil yahay ayaan rabaa fariin inaan u diro. waxaan rabaa fariin inaan u diro madaxda xidhay fu'aad yuusuf cali aan idhaahdo, cafwan,
jeelkan idin tusi doono dhigtay waxaan rabaa inaan fariin u diro walaalahayga Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool iyo kuwa geeska Afrika banaankiisa ku nool waxaan rabaa fariin inaan u diro madaxda geeska Afrika anoo ka bilaabaya Farmaajo dalalka geeska Afrika siyaasiyiintooda aqoon-yahankooda culimadooda intaaba waxaan rabaa inaan u diro fariin iyagana oo aan la wadaago ninkan maxaa lagu ciqaabay wiilkan fariidkee dulmiga diiday maxaa lagu cadaabay ayaan rabaa inaan la wadaago waxaan aad idinka codsanayaa inaad fariintaa idinkuna walaalaha u gudbiseen insha allahu tacaala waa marka u horeysa laba sawir ayaan soo dhigay oo aad u jeediin ood arkaysiin sawir waa sawirkaa quruxda badan leh fu'aad siduu u eg yahay waa shalay fu'aad shalay wuxuu ahaa nin madax ah wuxuu ahaa nin mas-uul ah wuxuu ahaa pilot ama duuliye diyaaradeed xidig leh laba xidig leh yani lieutenant buu ahaa mas-uul sare la qiimeeyo ayuu ahaa maanta sawirkan buu yahay jeel buu ku jiraa waxaan rabaa walaalahayga Soomaaliya jooga Somaliland jooga Garowe jooga Puntland aan idhaahdo Muqdisho jooga Kismaayo jooga Kenya jooga Jigjiga jooga Turkiya reer Jabuutiga intaa jooga culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku khaliijka jooga ku Masar jooga ku Turkiya jooga ku jooga maxaan ku dhahday Malaysia ku jooga Japan iyo China ku jooga South Africa ku jooga Mareykanka ku Australia jooga ku Canada jooga iyo ku Yurubtan jooga inta waa fariintan waan u dirayaa bal fiiriya billahi calaykum waxaan rabaa inaan idinla wadaago meesha uu fu'aad ku jiro sawirkaad arkaysiin dhinacan shalay buu ahaa u qurux badnaa haybad baa ka muuqatay rajul wuxuu ahaa qaran dulmi buu diiday uu sabray way ka badatay wuu adkaysan waayey cidhiidhigii diiqii gaajadii dawola'aantii mishaharkii oo laga goostay dulmiga lagu sameeyey inuu socdo uu baryootamo markii lagu qasbay ee uu baryootamo weliba cagtayda soo hoos gal ilaan madaxa kaaga joogsado si ninkii Maraykanka darkayseen aan cunaha ku qabto meesha Djibouti waxaa taqaaniin xabad rasmi oo dhash sida shabaabku dadka ay dhash uga siinayaan la iskagama siiyo laakiin si kala dhash la iskaga siiyaa uu hadlay dulmiga hala naga daayo yiri dulmiga hala naga daayo maxay noqotay natiijadeedii caawa waxaa hadlay Sheekh Bashiir waxaa hadlay Sheekh Barkhad waxaa hadlay xildhibaano hore oo Saciid Xuseen leh oo Ismaaciil leh waxaa hadlay wixii damiir lahaa way hadleen waxaan leeyahay dadka reer Jabuutiya damiir kale hooyooyinka ugu horeeya dhalinyarada ku xiga
culumadii way hadleen weliba culumada qaarun baa hadlay ee ma wada hadlin waxaan ka rabnaa inay hadlaan culumada Soomaaliyeedna waxaan ka rabaa inay hadlaan fariintooda waan u soo socdaa waxaan rabaa markii inay idinla wadaago inta reer Jabuuti way og yihiin way daawadeen inta reer Soomaaliya walaalahay ah ee aanan arkin baan rabaa inaad insha allahu tacaala iyo rasabra biidni illaahi alkariim waxaan soo qoray waad aragtiin daqiiqada ka hor qof kastoo damiir lahow qof kastoo dadnimo lahow qof kastoo diin iyo iimaan lahow qof kastoo wadani ahow qof kastoo islaamnimo ku jirto ha ka aamusin dulmigan ee hadal maanta ha ka aamusin dulmigan ee hadal maanta hadal berri maya maanta hadal oo dulmiga diid maanta hadal oo codkaaga hala maqlo maanta dhawaaq oo waxaad tidhaahdaa maya enough is enough waxaan rabaa inaad aragtiin meesha uu ku jiro Fuad waa kana aad uga raali noqdo codka aagadaha biyada kasii baa la ii soo dhuraa daaqad shaqaga si waxa ka soo baxa qaneeco dharaar oo dhan ku haysanaya wallahi waa loogu talagelin aan iskaga qabto inkastoo ay haddana hareeraha ka soo baxaan laakiinse alxamdulilah ligu bedelay magaciisi ninka ligu bedelayna ma jeclayna sheega magaciisa waa la xidhayay waxaan u yeedhanaa ninka mashaarkaaga bedelay ee komando aadan abdiraxmaan sheer komando aadan abdiraxmaan sheer markii loo yeedhay wuxuu yidhi Fuad arrinkiisu waa arrin aniga baxsan waa isagii korneelka ka dhaxaysa ee korneelkiisa u tago soo baryo wallahi baryo ilaahay baa lagu waskalay waxaan yidhi war marxaba waa ku samray ila maaya maaragtay waxaan soo gaadhnay bishii 8aad kowdeedii 2019 waxaa laga jaray kooraankii waa laga jaray aqalka waxaan yidhi bal u tag haddaba aqalka ugu tago maanta bay soo sigo cagaa qabso waxaan moodayay qof bini'aadan aan moodayay oo maaragtay wanaagga aad samaysay waxaan lahaa wuxuu masaxi colaad oo dhan masaxi markaan aqalkii ugu tegay waxaan ku yidhi walaalkay wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonaya inaad xaggayga ka ahatid adna xaggaa ka ahaado mishaarkaygana aad ii soo celisid sababtoo allaydhikii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yidhi soco waanaa kasoo fikiray waan eeganaa dib dambe maaragtay ilama hadin dib dambe laydhkii iguma soo celin waxa weeji tii dembi askari baan ahayd wax dembi haddaan yeesho markaan dembiga yeeshaba waa laiga marayay heerkayga oo ganaax mishaarka waa laga goynaya wax walba lagu samaynaya haddaad dembi samaysa tii anigu ku samraya waxaa dhacday marka in haddii toore bankigii isagana ganaax soo saaro sababtoo lacagii ayuu waayey banku mishaarooyinkii waayey ganaax buu soo saaray bil walba waxbaan yidhi دوان اسكي قادن جري وكاس لكن جناح أبان هذا الشيء جناح يبقى ليلة بليد حوي هذه تروح حلو وح أنا على اسكي السرنا يشقدي أن جوبي وحنا تنظر يمين هنا كنت هذه أذكر دوج الإلهي بقول الله يرضى أن تصح الكلام كقول بدوية علماء حسيب وين لقى حد الشرف سين عليه
تامر كان حاجة كبدو waxaan rabaa markaa inaan idin tuso wuxuuna tusay dabcan taana inagu basami karayna walaalahayo marka anigu waxaan leeyahay waan dhamaystay hadal anuu haddii toole waxaan sugay waa wadkayga iyo waxaan xdin runtii wuxuuna tusay jirkiisa meesha uu ku jiro sida uu yahay xaaladda jirkiisa waad arkaysiin waa kaas sidaasuu u gogo'ay torture weeye waxaasi wuxuu maxaan ku idhahdayey runtii finan baa ka soo wada dhaatay ciqaab iyo maaragtay halaag maxaasaa loogu cadaabayaa waxaad garan kartiin dabcan dulmiga uu diiday in uu dalka iskaga cararay kabacdi dalka markuu ka cararay etoobiya u aaday ogow etoobiya waxaad ka warqabtiin in wax lagaga beddeshay in la soo celiyo maxaan ku idhahdayey ninka yacna qofku marka uu exil u baxo ee uu dalbado maxaan ku idhahdayey nabadgelyo siyaasadeed qaanuunka caalamiga kuma jirto qof nabadgelyo siyaasadeed oo dal ka soo baxsaday in la soo celiyo dalkii uu ka soo baxsaday kuma jirto qaanuunka caalamiga etoobiya waxay samaysay gaf aad u weyn dadka damiirka leh looyarada qaanuunka caalamiga bartay igad ku jira auda ku jira fariintan u diraya waxa weeyaan in ay etoobiya arrintaas ku qabsadaan kuna dacweeyaan dadka jooga maxaan ku rahday Geneve ee xuquuqul insaanka meesha loogu doodo waxa weeye in Ethiopia Dr. Ahmed Abi dowladdiisu waxay gashay gaf siyaasadeed oo ay ka gashay qaran jaarkooda shacbiga qof soo codsaday ka soo baxsaday dulmi in inta la qabto la celiyo oo lagu soo celiyo meeshuu ka soo baxsaday waa gaf siyaasadeed weeyaan waxaan leeyahay markaa فؤاد الصبر جميل geesi baa tahay tolwaaye fariid tolwaaye baa noqotay caalamka inta xorriyaddu way qadhaadhahay in xorriyad loo cararo in xorriyad loo dagaalamo waxaad garan kartaa nin aqoon-yahanaad tahay nin wax bartay baa tahay Nelson Mandela 27 sano ayuu jeel ku jiray يعني markaan ka imaado cid kale Nelson Mandela nabigeena ku horreeyay alayhi salaatu wasalaam oo Madiina markuu ka cararayay sallallahu alayhi wasallam isagoo baqanaya hameen saq dhexe isagii Abu Bakar in ay bixeen oo sariirtii uu ku hurday Ali ibn Abi Talib uu sii seexday laakiin nabiga alayhi salaatu wasalaam uu guuleystay oo isaga oo madaxa sarow haya ayuu ku soo laamay magaaladiisii Makka ee ku dhashay ee uu lahaa Makay waan ku jeclahay ehelkaaga iga ka saaray ee kama bixeen waxaan ku leeyahay Fuaad ilaahay qalbigaaga ha qaboojiyo ilaahay qalbigaaga sabirkii ambiyada ha geliyo waad guulaysan waxaanad u bilowday reer Jabuuti meeshii ay ku dhammaanaysay waxaan ku dhahday diktatoriyada Ismaaciil Cumar Geelle ayaad maanta ma aragtay daaqadaas aad furtay saaxiibadaadii kaa horreeyay dulmiga diiday
qaarkood qabri bay galeen oo qabri bay ku jiraan oo way u dhinteen qaarkood silic bay ku nool yihiin iyo saxariir waxaad arkayseen maalin dhoweyto maama mako oo halgamayaashii xorriyadda ahaa sidee u ekayd way shaaxiday wallaahi waa kii sheekhu xali tol sheegay way shaaxiday buu yidhi maamadaasi si silic cunaha halkaasaa la qabtay halkaa ha qofka calanka jabuutiya lagu faano fanaankii im national sameeyey maanta siduu ku nooliyay waad ogtihiin qof kasta oo dulmi diida jabuuti waxaa laga dhigaa in uu ku noolaado nafbax inuu ku noolaado ilaahay naftu kaga baxdo isagoo oo silicsan yani ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala shuhada inuu aqbalo dhammaantood waxaan ku leeyahay marka fu'aad qalbi adayg insha allahu tacaala waad guulaysan waanad ka soo bixi jeelka culummadii baa kaaga horreysay way ka soo baxeen alxamdu lilah adiga iyo inta kugula jirta ee kula midka ana waad ka soo baxaysiin biidni illahi alkariim gabadheenna ee xaaska u ah fu'aad waxaan leeyahay geesiyad baa tahay fariid baa tahay geesi baa ku qaba qalbi adayg geesinimadaas hadalkaagay ka muuqataa adkaysigaagay ka muuqataa sabirkaagay ka muuqataa fariidnimadaaday ka muuqataa meel ay gabdho kale waa hore ku jebi lahaayeen ayaad maanta sidii buurta soo taagan tahay sidii buurta ayaad soo taagan tahay waxaan ku leeyahay hambalyo 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 mar saddexaad sababtu waa maxay waxaa la yidhaahdaa nin kasta oo geesiya waxaa ka dambaysa waraa'a kulli rajulin cadiim imra'a haddaanad adigu maanta daba joogin fu'aadsaa ma ahaadeen geesinimada garab baad ugu noqotay haddaad ka hor iman lahayd geesi mu ahaadeen maanta marka waxaan ku leeyahay qalbiga adkee reer jabuutiyo dhan reer soomaaliya oo dhan caalamka wax af soomaali ku hadlay ee ku maqlay ee ku arkay way kula jiraan sida ay fu'aad ula jiraan gabadh kasta oo soomaaliyeedna waxaan leeyahay marka aad sidaa u halgamayso ee aad dhexda adkaysanayso ee aad faruurta qaniinayso ee aad cilinta celinayso geesiyad baa tahay fariid ah nimco jaamac ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo oo ha xifdiyo oo ha u adkeeyo caafimaadka gabban mayno bay tiri gabban mayno indha gibirsan mayno ha way soo dhaadhacdo way timidday dalka bannaanka iyadoo joogtana way hadashay gudaha iyadoo joogtana way hadashay eeg dadka damiir kale ma gabbadaan ma dhuuntaan runtii ma gabbadaan mana dhuuntaan ismana qariyaan waxaan ku leeyahay geesiyad baa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu adkeeyo iimaanka geesinimada ilaahay ha kuu adkeeyo fikirka maskaxda awoodda aragti dheerida ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu adkeeyo carruurtana allah kugu xafido ilaahay waxaan idinka baryayaa caafimaadkana inuu idin xoojiyo fu'aadna caafimaadka u adkeeya subxaanahu wa tacaala fu'aad walaalihii gabadha walaashii ee qadada loo diiday berrina u celi qadadii ha laguu soo diido eeg jihaad baad ku jirtaa halgan baad ku jirtaa wiilasha iyo maaragtay gabdhahaba saasaan leeyahay maamada fu'aad dhashay cid kaa dhegaysanaysa hooyoy maanta oo il iyo dheg maqlaysa ilaahay baa qur'aan ku tilmaamay subxaana wa tacaala qalbi adaygooda dhaga adaygooda indhala'aantooda ha wax ma arkaan oo wax ma maqlaan oo wax ma fahmaan laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala
inuu garabkiina galo hooyey garabkiina inuu galo idinka iyo ummadda reer jabuuti oo dhan baydin la helkariyo waxaan u soo noqonayaa fariintan u diraya culummada reer jabuuti khaasatan waan ogahay inaad masaakiin tihiin waan ogahay qaarkiin in la xidhay oo la dhibay oo ay adkaysan waayeen silaca ay hadleen markay hadleenna hadalkii ay ku mutaysteen in jeel lagu tuuro qaarkiinna aad awoodi weydeen inaad hadashaan oo duruufta aad ku jirtiin faqriga miskiinnimada baahida iimaanka oo daciifa inaad aamusteen shib aad dhuumateen waa dareemi karaa duruuf adag baad ku jirtiin ilaahay idinka saaro ilaahay idinka saaro subxaanahu wa tacaala ilaahay baa awood leh subxaanahu wa tacaala idinka saari kara laakiin waxaan leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid ha waxaan leeyahay culummada reer jabuuti inta la yaqaano iyo intaan la oqoonba intaasoo badan baa jirtoo la oqoon tiro badan oonanu garanayo ma rabo magacdooda inaa sheego hadla oo intaad hadli kartid hadal oo hadalkaagu hadal xikmadaysan ha noqdo qasab maaha inaad fagaaro soo joogsato laakiin waxaa qasaba inaad action samayso ilaahay wuu ku arkayaa subxaanahu wa tacaala wuuna ku daalacanaya haddaad aamustood isqariso yowma alqiyaama waxaad imani adigoo isqariyo dhuuntay ayaad imani waa lagu weydiini waad iga badisaa cilmiga diinta dadka qariya xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamada markay yimaadaan muxuu noqonayaa xaqii muxuu noqonayaa ciqaab cadaab walaalkaa fu'aad magacaan buu sheegay magacaantii waxaan arkay culummadii uu magac dhabay qaarkood way hadleen qaarkood baa weli aan hadlin waan ku adkaynayaa inay hadlaan hadday awooddeeda leeyihiin qaar waxaa la ii sheegay inay xanuunsan yihiin oo xanuunkan covid-19 ku dhacay ilaahay baan uga baryayaa inuu caafiyo subxaanahu wa tacaala waa dadkaygii waa walaalahay waan jecelahay waa culummadii dalkeenna ilaahay caafiya subxaanahu wa tacaala ilaahay baan caafi baan u weydiinayaa waxaan leeyahay inta xoog gale waa magac dhabayaa hadduu awoodo weyaan walaalkaabaa soo codsaday jeelka ku jira haddaad awooddo hadal waxaan u yeedhayaa walaalkay xuseen cali khuruuj maan tan iyo markaan yarayn iyo ahlu khuruuj ha ahludiin haddaad hadli karto walaalkaa uu ku soo dalbaday hadal u duceey ilaahay u weydii subxaanahu wa tacaala faraj adig iyo culummada kaliba culummada magaaladeena joogta waa inay hadlaan insha allahu tacaala si ka duwan waad u hadli kartaa qasab maaha si aanan ugu hadlay sida uu barkad u hadlay sida uu bashiir u hadlay sida uu koor kale u hadlay inaad u hadasho qasab maaha si adiga ku laa'iqa ood u aragtid inay laa'iq kuu tahay u hadal u hadal yani culummada reer jabuuti ha ka qarinina baadilka iyo dulmiga dalka ka jira ee hadla oo ummadda la wadaago sheega culummada reer soomaaliya iyagana waxaan ku leeyahay ilaahay ka baqa ittaqullah ilaahay ka baqa oo dulmiga aad ka hadli jirteen cabdi ilay markuu ku samaynayey dadka reer maaragtay kililka shanaad soomaali galbeed ku samayn jira aad ka hadli jirteen halkan ismaaciil maanta ku sameeya waa kanad u egteen eeg siduu u eg yahay eeg fu'aad siduu u eg yahay arag kumanaan isagoo kale ah ku jirta maaragtay jeelka jigjigee jabuuti siduu ninkii balbele ka soo hadlayey uu ku tilmaamayey wuxuu yidhi jeelka jabuuti waa jeelkii jigjigo oo kale weeyaan buu yidhi ee cabdi ile ilaahay ummadda kuma soo celiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax ka khayr badan ummadda reer jabuuti inuu u keeno wax ka khayr badan ismaaciil
إنه إلهي أكينا سبحانه وتعالى ومدر جيبوتي waxaan leeyahay marka walaalahay culimada reer Soomaaliya kuwa aclaamta ah ee la yaqaano ee caalamka sida u gilgila markay hadlayaan mararka qaarkood waxaan leenahay Ismaaciil malak ma aha عنده ميقات وقت بوليه هي ودمان دون جيبوتي waxa isugu tagay فرعون هامان قارون baa isugu tagay جيبوتي علماء reer Soomaaliya halkii maxamed idris ilaahay khayr si shame on you bu maaragtay yiri maxaan ku dhahaa asagoo Mareykan jooga Ismaaciil baa soo qaatay isagaan ku leenahay maaragtay Ismaaciil laftigiisa shame on you haddii culimada reer Soomaaliya aad ka hadli weydiin dulmiga ka jira Djibouti shame on you baa la yidhaahdaa idin kale uma qalatin in la yidhaahdo laakiin haddaad ka aamustiin dulmiga shame on you baa lagu odhanayaa maqaamkaagu meeshu doona ha noqdo haddaad ka aamusto dulmiga shame on you baa lagu odhanayaa adigan caybun wa caarun calayka baa lagu dhihi haddaad dulmiga ka aamusto oo aad ka hadli weydo doctor barkhad baa ka hadlay oo baaxith oo doctor weyn oo la yaqaano caalim ah sheekh barshiir baa ka hadlay culimada reer Djibouti baa ka hadashay xageed kaga hadhi marka uu geeska Afrika ku jiraan xageed uga hadhi Ismaaciil passport miyaad uga hadhi passport oo Ismaaciil bixiyo miyaad kaga hadhaysaa billahi calayk ilaah baan kugu dhaash culimada Soomaaliyeed Allahumma fashhad ilaahay baan markhaati ka dhiganaya waa idin soo gaarsiinay maxaa yeelay berri hadday dhibi ka dhacdo Djibouti oo aad maanta ka hadli weydiin looma baahna berri inaad qaylqaylisaan maanta loo baahan yahay hadalkiin maanta loo baahan yahay dhawaaqiin maanta loo baahan yahay sensibilizationkiin inaad ummadda la hadashaan oo xukumadana la hadashaan inaad ummadda la hadashaan oo xukaamtana la hadashaan maanta loo baahan yahay berri maya berri looma baahna too late waqtigaa ka dhacay qaylada berri toola qayla dhaan uma baahni baroor diiq uma baahni maanta loo baahan yahay in la gaadho ummadda dalka Djibouti waa taqaaniin waa dalka geeska Afrika maanta nabadda shacabka haya Ismaaciil ma hayo wallahi shacabka haya shacabka miskiinka ah gaajadu dishay haraadku dishay dilay koronto la'aanta ugu biirtay subhanallah culimada Soomaaliyeed qof kastoo dhawaaqayga gaadho ushhidukum ala Allah ilaahay baa idinku dhaarshay sida idin laa'iqa uga hadla laakiin ka hadla dulmigaas sidayda uga hadla qasab ma aha laakiin dulmiga inaad ka hadashaan baa jirta بين الله الكريم وانا اوغاhay inaad awoodiin oo ka hadli kartiin inaad awoodiin oo aad ka hadli kartiin boqolkiiba 200 waan ogahay Allah yaxfado waxaan la hadlayaa dadkayga reer Djibouti iyo dadkayga reer Soomaaliya walaalayaal haddaan ku hormaro walaalahayga reer Djibouti malaa'ig samada ka soo digi mayso ka soo degi maysa ka wada malaa'igtii qaswatu badr soo degtay saxaabadu ayaga oo qilla ah ayay baxeen markaas ay ka hortageen askartii mushrikiinta ee kufaarta ee gaalada ay ka hortageen markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo caawiyay kumanaan malaa'ig ah waxa ka wada haddaad iska fadhido ood maantaba inshi tuugsanayso dee shaku rugman maayo maraykanka maanta wax ka dhacay waa idinka arkay shacabku naf bay leeyihiin macnaheedu kama dhigno caqliyadda waa inaan bedelo markaan bannaanka u soo baxayo inaan dhagax tuuro inaan wax jebiyo sax ma haddee sax maaha waxaas waa badootinimo xaggii ugu dambaysay waa fool xumo xaggii ugu dambaysay maalin hore waxaan arkay muqdisho dhalinyaro intay bannaanka u soo baxeen jejebinaya laamiyadii la dhisay basaskii meeshii baskii laga raacayay loo dhisay ayay jejebin yaad ka jejebinaysaa adaa leh adigaa leh
qofka madaxa aad u xanaaqsan tahay ma aha meesha lagu sameeyey infrastructure-ka maaragtay inaad jejebiso no sax ma aha ninka mas-uulkaa doono maamulka maamulaha ka hor mudaharaad ka hor bannaanbax si silmi ah diidmadaada iyo maaragtay badhaarahaaga sheego laakiin dalka nalka adaa leh tiriigga adaa leh dariiqa adaa leh waxa ummaddu leedahay waxa dalka u dhisan adaa leh eeg etoobiya eeg miyay burburisay dalkayga maya soomaali caqli xumo waxa dalka loo fujistay dulmi bay ahayd iyo baadil yacna ciil iyo caray ahayd laakiin sax ma ahayn in dalka la burburiyadee ilaa maantana sax ma aha inaad dalkaaga burburiso oo aad jebiso nalkaaga jebiso oo aad dariiqa jebiso sax ma aha waxaan leeyahay marka reer jabuuti fadhiga ka kac reer jabuuti fadhiga ka kac fu'aad waxaa lagu beddeshay dekedda waxaa ka soo degaya dekedda ayaa jooga adaa jooga laamiga ay baabuurtu marayaan u soo baxdee soo joogsa laamiga waxaan rabnaa xorriyadda fu'aadde waxaan rabnaa xorriyadda shacbiga jabuutide codso xorriyaddaada cidi ku siin mayso free maa xorriyaddu way qadhaadhahay xorriyaddu u soo baxa waxaan arkayey inay reer kaarsiisi soo bannaanbaxeen reer belbele soo bannaanbaxeen bannaanka u soo baxa maxaa ku helaya haddaaba naftu kaa baxde maxaa ka dhimanaysaa marka waxaan leeyahay reer jabuutiyow inta aad aamusan tihiin inta jaadka la idinku jaanjaamiye eeg jaadka diida jaadka ugu horreeya waxa irbadda sunta ah ee aan maaragtay aad ka kici laadahay irbadda sunta ah waa jaadka 9 subaxda kuu soo degaya ee aad qayilayso aaway dhallinyaradii aaway xooggii aaway dadkii damiirka lahaayee maaragtay diidaya xumaanta diidaya dhallinyarada waxaan idin leeyahay baraaruga indhaha kala fura dhagaha kala fura rejiimkan wuu sii socdaa yuuna idin galaafanin rejiimkani way u dhammaatay khalaase fini intaha amru it's gone rejiimkan wuu sankaraadkii buu ku jiraa wallaahi been idiin sheegi maayo sankaraad buu ku jiraa waxaan idin leeyahay diidmo wa ilaa walaalkii loo xiriyow adna soo qoyso maanta waa fu'aad maaha shalay waxay ahayd maxamuud eeg culummaday ahayd jabhuu ku dhex dhintay maaragtay allah u naxariistee sida maxamuud ugu dhex dhintay jeelka ayay ahayd daaf bay ahayd aadan rooblay ahayd yacna way ahayd maanta yaa ah maanta waxaa maxaan ku dhahday fu'aadii inta kula jirta berri iyaa noqon doona haddaad diidintan maanta berri iyaa noqon doona adiga wallahi meel kada ka fog adigaa noqon doona adiga waxaan dhisnaa qoys bay burburinayaan kuwani qofku halkuu ka soo baxaa qoysku ka soo baxaa eeg qaranku muxuu ku taagan yahay waa qof iyo qoys qofkii bay dilayaan qoyskii bay burburinayaan waxayna rabaan qaran inuu jiro siduu ku jiri karaa qaran marka ma jiri karo waxaan leeyahay marka dhallinyarada reer jabuuti baraaruga indhaha kala fura dhagaha kala fura ilaahay khayr idin siiyo waxaan u imanayaa diasporada bannaanka joogta iyo mucaaradka iyo muxaafadka waxani ma aha mucaarad iyo muxaafid ma aha waa nolol weeye nolol waa qaran waa dad waa bili aadan waa humanity eeg waa humanitygii waxaan ka hadlayno waa bili aadantinimadii يا أخي محافظ كاد دون تنقو معارض كاد دون تنقو أنا واحد ديدنهي ظلمي كان ديدنهي والله ظلمي كان ديدنهي ولا عيل بانو قبا إسماعيل ولا عيد كأقلو بان عيل قبا وحان عيل قبا فعل كود حن أي سمينيا
naftooda ciil uma qaba ilaahay baa abuurtay ilaahay baa la naftooda laakiin waxaa dhibay oo aan ka seexan la'ahay oo aan maanta wax ka cuni kari waayey waxaa weeye fu'aadiya intii ka horraysay sida loo galayo iyo idinka oo dhanoo hawaduun idiin furan tahay laakiin gabood oo weyn aad ku dhex jirtiin reer jabuuti taasaa dhibaysa wallaahi taasaa dhibaysa walidaalika dadka damiir kale markay diidaan waa la colaysiistaa dulmiga markay diidaan waa la colaysiistaa waxay rabaan marka inay naga dhaadhiciyaan bay rabaan eeg walaalkii loo xiiriyow soo qoyso haddaad hadasho fu'aad baad noqoni maxamuud baad noqoni jabhaad noqoni maya waxaad tidhaahdaa waxaad noqoni cumar albashiir waxaad noqoni qadaafi waxaad noqoni cali cabdallah saalex u tiri imisaa madax qooqday ilaahay qur-aanka kaga sheekeeyey bal innagu waktiganaan joognaan arkayna dee eeg u sheeg inay saa noqonayaan iyaguna war haddii adiga waa lagu xidhi la yidhaahdo adiguna waa dhiman dhe waa lagu xidhi soo maaha dee adiguna waa lagu soo jiiday bulaacad baa lagaa soo jiiday si qadaafi looga soo jiiday berri baad odhan aabihiin baan ahay marka intayna meeshu xumaantaas iyo dhibkaas iyo problemka ayna gaadhin maantaan dhownahay berri maya wallaahi maantay dhowdahay haddii ilaahay la yaqaano oo qaran la yaqaano oo qof la yaqaano maanta iska diid dulmiga maanta dulmiga iska diid diasporada waxaan dhihi lahaa waad arkaysiin maraykanku siduu kolba magaalo ay uga qiiqayso ay u kaceen ay u mudaharaadayaan ay u diidan yihiin dulmiga loo geysanaya dadka madow waxaan soo qoray black lives matter bay dheheen anigana waxaan soo qoray Djiboutian life matters sida walaalo qaarkood ay u soo qoreen Somalian life matters ayaan leenahay war ummadda noloshooda ha loo daayo reer diaspora Soomaali iyo reer Djibouti meesha doontiin jooga dulmiga diida sarakaca hadalku haddee gacan kamaad hadal ma dagaalami waad hadashay sheekh dayib allah xafido ayaa wuxuu yidhi culummadu markay hadleenee la xidhay ayuu yidhi ismaaciil dee hadal xoogga iska daa dadka ha dulmin xoog baan leeyahay maanta maalinay kaa saareen baa jirta dee laakiin hadal waa la hadlaa marka waxaan idin leeyahay walaalahay diasporada dadka joogow hadla dee oo dulmigaan diidnay dhaha waa hooyooyinkii baa soo baxe hooyooyinkii baa la dulmigaan diidnay eeg dulmiga ayaan diidnay subxaan allah arrinaan jeclayn baa jirta inaan ka hadlo oo aan rabo inaan taabto runtii ma jecli inaan ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan taabto arrintaas waa maxay isticmaalka social mediaga loo isticmaalaya waxa foosha xulme waa maxay waa qabyaalad iyo qurun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacuuha fa inaha mumtina dacuuha isaga taga waa wax qarmuun oo qurun ah oo uraysa buu yidhi nebigu sal alla alay wasalam man daca alcasabiyata falaysa mina dhalinyarada qabyaaladda kaga sheekaynaysa social media waxaa idin leeyahay idinkaa isdhibay dadka reer Djibouti markaad reera u kala saaraysiin idinkaa isdhibay idinkaa isceebeeyey idinkaa wax xun ka hadlay reer Djibouti qabiil iskuma yaqaanaan reer Djibouti kaartey bay isku yaqaaniin xaafad bay isku yaqaaniin football club bay isku yaqaaniin eeg masaajid bay isku yaqaaniin waxay isku yaqaaniin reer Djibouti waxaan ahay anigu reer Djibouti waa la garsamaha dadka mas-uulka ka ah dalka qabiil ma laha haddaad adigu aaminsan tahay anigu ma aaminsani inay qabiil matalaan
inay reer matalaan ma aaminsani inay reer yihiin ma aaminsani adigu waad dhihi kartaa waa aragtideedaan ka hadlay adiguna taadaad ka hadlay waa laga yaabaa xisaabaad inaad isku gegeyso markaad meelo aragto boosas markaad aragto dad gaari ay hayaan adigu dee waad siini kartaa maxaan ku raday macnaha laakiin anu waxaan kuu ogahay dadka reer Jabuuti waa reer Jabuuti canfartooda carabtooda soomaalidooda iyo inta ma aragtay reer Jabuuti ee xabashida ee degan dalka oromada ee dalka degan maxaan ku dhahdaayay runtii waa wada reer Jabuuti waxaa odhan lahaa marka waad igu khilaafi kartaa aragtida qasab ma aha laakiin meeshaan ka imanay wax weeyaan inaad qabiil u saarto meel oo aad tiraahdo kani waa qabiilaysti kani waa reer hebel kani waa maxay kan waa sidan gabdhaan arkay waa weyn waxaa ku sheekaynaya wiilal baan arkay waa weyn niman waa weyn baan arkay waxaa ku sheekaynaya waxaan leeyahay war waxaasi waa wixii walaalaheenii naga weynaa ee Soomaaliya ay ku burburtay ay ku jabtay ay ku kuftay 30 sano laga soo kaban layahay ilaa maanta la dhoodhoobayo ilaa maanta 4.5 baa Soomaali ka dhex jirta waa la dhoodhoobaya wali war waxaas ka ilbaxa waxaas dhexdiina ha soo dhigina waxaas yaana dhegta lagugu ridin yaana lagugu sheekaynin kana hebela kana heblaaye ah walaga yaabaa qaarkii inaad tirahdeen sheekh waad isna tiraysaa isma ina tiraye waxaan ku soo kornay baan ka hadlayaa idinkuna ku korteen qaarkiin xumaantuse maanta hadday hoos u soo degtay iska celiyadii idinkaa laydinka rabaa inaad xumaanta iska celisaan adaa lagaa rabaa inaad gacanta qabato unsur akhaaka dhaaliman oo madluuman adaa lagaa rabaa inaad diiddo hadduu qabyaalad kuula yimaado inaad diiddo adaa lagaa rabaa cid kaa celinaysa kale ma jirto ha aaminin marka don't believe it ha aaminin wa ilaa waad ku halaagsani cugdad baad ku gali waad bukoon waad jiroon cid ku caafinaysana ma jirto maskaxdaada taan baa ku duuri 20 sano ee soo socotaba qabyaalad umad ka sheekayn qabiilun baa ku dhex mari dhinaca kale kaaga tabi waxaan oran lahaa marka ilaahay khayr aydi sii arrintaa foosha xun leh iska diida iska leexiya ma nihin dhaha gaashaanka u daruur gaashaanka u daruur haddii lagugu dayana de iska diid ma ihidhe ha aaminin ha aqbalin waan dareemi karaa dulmi oo de muxuu ku xidhan yahay fu'aadada oo kuwa maxaan ka horreey maxaa lagu xidhay dee fu'aad furlama lagu ma aaminsan anigu adoo haddaad doonto waad aamini kartaa laakiin dulmi baa meeshan ka jira ha aaminin marka waxa aan diidanahay anigu waa taas qabyaalad inaad aaminto adigana way ku burburini dadkaagana way burburini qarankana way naga burburini marka taas halkaasaan kaga baxayaa khayr allah idin siiyo waxaan u soo laamayaa dowladda hadda joogta maamaan maanta maqligay waxay tiri ismaaciilow waxaad nagu haysataa bay tiri madaxweyne nooma tihide maamada intay is adkaysan kari weyday marka hore ay tiri ilaahay ka baq oo ilaahay ka baq oo ilaahay ka baq war aakhiraad dambaysa war qabri baa dambeeya war malakul mawdkii shalay toole ministerkaaga qaadaa dambeeya oo kuu imanay ee walaalkaa qaaday ee seedigaa qaaday aawe xaggay mareen kuwii kuu campaign garaynayay aawe iska badaawa cali cabdalla saalix iyo qadaafi iska badaa kuwii hareerahaaga aaway soo malakul mawd ma qaadin adiguna waad leedahay de kullu nafsin dhaa'iqatul mawt inta ismaaciil iyo inta ismaaciil ka adhow ee ummadda reer Jabuuti dulmiga ku haysata ee askarta maamulaan cabdallaan sheegi sakariyaan sheegi wallaahi kullu nafsin dhaa'iqatul mawt naf kasti way dhadhamini qadhaadhka sankaraadka mawdkuu leeyahay maalin baa imanaysa taadii maalin baa imanaysa marka waxay tiri madaxweyne nooma tihide waxaad nagu haysataa toorad waxaan maqli jiray eri la odhan jiray jabuuti turabbi ciyaala ghayraha
تأكل عيالها وتربي عيال غيرها. مركا وعجيب وهذا القرر ربحي هذا القاس ما مداسي waxay tiri muxuu Ismaaciil ilmihiisa muxuu u dilayaa ma curriba ilmihiisa caruurtiisa cune subhanallah يعني الضمير وهذا القصة بحي قلبي قبتي قلبي شيلمي قلبي ظلمي انتو كبتي لا عريري لا ضيقي لا يعني الساعة لو حفوجي سبحان الله وحن الله إسماعيلي انت كأقدو هداد ما انت إديدي او لغا قيليي او لغا عبادي تراهدين دادكا محكا نمينا كوان با أباهن jeelka ku jira jeelkaad ku cadaabaysiin la sheegaya askarta xataa in qaarkood hadda la xiray inaad u cadaalad tartiin oo ilaahay aad ka baqdin annagu xumaan idinlama doonayno wanaag baa idinla doonayna ilaahay ka baqa wataciyaha udun waaciya waa haddaad dheg leedihiin waa haddii aad dheg leedihiin oo aad wax maqlaysiin xisaabi way dambaysaa wallaahi xisaabi way dambaysaa waa la dhihi karaa shacabka reer Jabuuti adkaystoo sabra waanan dhahaa anugu laakiin maanta dee shacabka reer Jabuuti bannaankay usoo bixi karaan ayagoo nabad ilaahaya oo aan waxba jebin waxna halaynin waan uga hoodee sakariya maaragtay madaxii maaragtay booliiskii cabdullaahi baad adeegsanoo dee rash ku ah iyo maaragtay ayaad samaynaysay sidii caadiga laydinku yaqaan madaxdu markay qooqaan caadi bay u tahay inay dadka maaragtay rusheeyaan laakiin dee halkeed idinku aadaysay aadin weydiiye yaa allah war maanta iyay caana kaga daadanay wallahi anu run baa idiin sheegaya idinkaan idin leeyahay siyaad barre ilaahay u naxariista meeshuu maray ku cibro qaata iyay caana kaga daadatay inanta xoololayda ah powerka haysata biyaha xareedda ku maydhata wax kastoo ummadaasi ay heli lahayd ka cunaha ka qabatay aday cabuudi kaaga daadan aday kaa xumaani adigay maaragtay adaadee gubani adaa baxsani eeg adigaa odhanay soo gaadha marka maanta ilaahow shacabka waxaan filayaa malaa inaad ku ducaysataan ilaahow shacabka naga seexi ilaahow ha nagu kicinin markaad aragteen shucuub kacday caalamka oo madaxdoodii ay carareen ay baxsadeen markaad aragteen shacabka reer Jabuuti waa miskiin waa daciif waa saabir sabraya adkaysanaya silic bay ku nool yihiin imisaa xoola boorka ka soo gashay dekedda imisaa xoola idin soo gasho oo maaragtay ciidanka bannaanka ka Maraykanka ka Japan ka maaragtay China imisaa xoola dalkan timaada qof kasta oo reer Jabuuti maanta wuxuu ku noolaan lahaa nolol macaan idinka laftidiinuna nolol macaan baad ku noolaan lahayd qalaq baa idinka muuqda walwal baa idinka muuqda daal baa idinka muuqda wareer baa idinka muuqda waxaan idin leeyahay Ismaaciil iyo inta ka agdhowow naftiina u tura ummaddiina u tura isku naxa idinku isku naxariista waxaad u malaynaysaa in la idinka qaldan yahay laakiin ummaddaasi waxay u cabaadayso waxay uga soo wada carane eeg caqligii dalka aaway aqoonyahankii reer Jabuuti aaway aqoonyahan bannaanka laga keeno aad maaragtay madal u furaysiin kan reer Jabuuti aaway bannaankay wada joogaan ay wada wareegayaan maxay bannaanka u wareegayaan waad iga aragti doonaatay waad i kritikaysay waad iga hor timiday ima ogolid adeer meeshu waa siyaasad meeshu waa maamul meeshu waa hoggaan meeshu waa sharing waa la wadaagaa waa la isbedelaa imisaa ka soo wareegtay dowladaha Soomaaliya isbedelay haddaad maanta arkaynin cidaad u dhiibto dee 10 sano 20 sanayd soo joogta bay kaa fashilatay ilaahay ka yaab isaga tagdee isaga tag u dhiib maaragtay dad kaa maamul roon da' baa tahay hadda ilaahay ka baq subxaanahu wa tacaala waxaan ku leeyahay qabrigaaga meel u dayo Ismaaciil iyo inta ka agdhow fanaaniinta ministarada lasoo puanteeyey
إن xildhibaan rasmi oo loo soo doorto xaafad laga soo doorto ma jirto waa nin la soo noomeeyey oo idaacadda uu iska maqlay ha waa lagu plonteeyey mogtahay waa lagu soo dhigay meesha ha marka ma daa'imayso oo weligaaba ma haysanaysid ma helaysid waxaad maanta ku jirto dadkii caqliga lahaa damiirka lahaa fikirayey iimaanka lahaa bannaankay wareegayaan maanta eeg bannaankay wareegayaan caqliga bannaanka wareegaya cabdiraxmaan bashiir baa ka mid a caqliga weyn ee bannaanka wareegaya cabdiraxmaan bashiir baa ka mid a aqoonyahan baa ka mid a cabdiraxmaan waa beri baa ka mid a eeg tira male sweden bay ka buuxaan kanaday ka buuxaan waxay ka buuxaan ingiriiska waxay ka buuxaan belgiga waxay ka buuxaan carabaha waxay ka meel walbay u baxeen ay aadeen meel kale ka raadinin somaliland bay tegeen eeg xuduudday ka soo tallaabeen somaliland bay xorriyad ka dareemeen somaliland bay joogaan waa caqligii reer jabuuti eeg somaliland bay joogaan okay waxaad u baahan tahay marka caqligaas dee loo hanan karaa wataciyaha udun waaciya waa ku celinaya haddii dee warkaasi uu idin cajabiyana idin cajabi haddii idin cajabinna awalba waa qooqnaydeene ilaahay ha idin dejiyo ilaahay ha idin dejiyo shacabka reer jabuuti waxaan ugu baaqayaa oon leeyahay ilaahay nasrigiisu uu dhow yahay الصبر جميل الصبر جميل أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب إن أي جوش دودهينا واحد أركيسا علامتها قطصية علامتها كالصعدة أيا قطصية إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إن مضاحظا هي ستسو هذه إلهي بان أبريا ووقت الدمان نبجوغ هذا فهمتي إلهي بان أبريا إنو سو هذه وضدك يجي waa walaalahayo waa kuwii aan isku diirka ahaynin isku dhiigga ahaynin noo nixi lahaaye u nixi lahaa maatida waa kuwaas weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ha soo hadeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala shaydaanka dhegta kaga hadlaya ee been bay kuu sheegayaan waa maaragtay waa mujrimiin kuwani waa maaragtay fitnay wadaan kuwan ku dhahaya ilaahay ha kaa qabto iyaga ilaahay ha kaa qabto iyaga iyo maaragtay shaytaan waayo shaytaanku min al-insi wal-jinni buu yahay sooma kuwaas ilaahay ha kaa qabto ilaahay ha idin soo hadeeyo subxaanahu watacaala xaqa allah idin tuso allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaacah ayuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaan idinku ducaynayaa oo ilaahay idinka baryayaa subxaanahu watacaala dhagihiina inuu ilaahay iyo laabtiina ilaahay unu u furo walow sunna kawniya ay iska jirto oo mararka qaarkood dhaalimiinta ilaahay subxaanahu watacaala ina rabbaka labilmirsaad ilaahay in uu dhaalimiinta iyo mujrimiinta indhaha laga qabtaa laabtaa laga qabtaa dhagaha laga laabaa way ka xidhan yihiin waxaasoo dhan quful baa lagaga dhajiyaa ma maqlaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idiin furo dhagaha inuu idiin furo indhaha idiin furo qalbiga idiin furo dhawaqaa qayladaas yeedhaysa ay qalbigiina taabatay ku dhacdo ilaahay baan idiin baryayaa subxaana watacaala inuu ilaahay idin toosiyo idin hagaajiyo waxaan ilaahay u baryayaa walaalkaygaa dulman ama walaalahayga dulman ee jeelka ku jira inuu ilaahay sabarsiiyo subxaanahu watacaala iimaanka u adkeeyo caafimaadka u adkeeyo qalbiga u adkeeyo u xoojiyo geesinimada sabirka u adkeeyo inayna ka tanaasulin mowqifkooga geesinimada leh ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inta la dhalatay ee qaraabo la ah ee waalid u ah ee maaragtay xaas u ah ee oday ay u yihiin ee maaragtay aabi iyo waalid ay u yihiin ilaahay iyagana inuu xifdiyo subxaanahu watacaala oo uu sabirka u adkeeyo qalbigana u qaboojiyo shacabka reer jabuuti ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay faraj u furo inuu ilaahay ku ilhaamiyo farajka in ay iyagu raadsadaan si wanaagsan oo fiican oo qurux badan ay ku raadsadaan
ilaahay inuu ku ilhaamiyo dareenkooda inuu sare u qaado sabirkooda u adkeeyo caqligooda weyneeyo fahansiiyo dadkooda iyo dalkooda inay iyagu leeyihiin ka ceshadaan ka burburinaya ka maanta dulmaya uu ka burburinaya dalkooda ay ka ceshadaan ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inta qurbaha joogta inuu ilaahay xifdiyo iyagana oo ilaahay toosiyo oo ilaahay sabirsiiyo oo ilaahay khayrka uu maaragtay ku sugo ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala kelmadda aan iri dhago u furan iyo laab u furan inuu maqashiyo ay ku dhacdo insha allahu tacaala oo ay ku anfacdo inta wanaagsanan iri ilaahay waxaan ka baryayaa haddii aan wax aan fiicnayn ku hadlay inuu ilaahay iga dhaafo subxaana wa tacaala haddayba jirtaba wax dhibaya dalka haddii ay dadka iyo dalka haddii ay jirto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkan ku hadlay midkiisa wanaagsan ay ka qaataan waayo dee waa waxyi taasi oo waa qur'aan oo waa sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waa dariiqii ilaahayna baray subxaana wa tacaala aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana inta kale iskaga tagaan ilaahay inuu shacabkeenna reer jabuuti shacabkeenna soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadalka la sheego kiisa wanaagsan kuwa qaata allah inaga dhigo kiisa wanaagsan kuwa qaata allah inaga dhigo subxaana wa tacaala aad baan idiin jecelahay dadkaygaa tihiin dhiiggaygaa tihiin ummaddaydii baa tihiin reer soomaaliya iyo reer jabuuti mid baan nahay waxaan ku kala duwannahay ma jirto ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa muqdisho jooga kuwa kismaayo jooga kuwa garowe jooga kuwa jooga maxaan ku idhahdaa somaliland kuwa jigjiga jooga kuwa dirdhaba jooga kuwa nairobi jooga kuwa jabuuti jooga intaba ilaahay inuu xifdiyo wixii dulmi ku haya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka qabto inta jeelasha ku jirta ilaahay inuu ka xoreeyo jeelasha ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka xoreeyo aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamaya meel kastood caalamka joogtiin jazaakum allahu khayran baa idin leeyahay allah ina xifdiyo inta bannaanka joogtana allah inagu xifdiyo inta gudaha joogtana allah ina xifdiyo qarankeeni iyo dalkeeni iyo dadkeeni iyo dhulkeennana ilaahay subxaana wa tacaala sharoo dhan inaga xijaabo khayr oo dhanna ilaahay haynoo keeno dhibaata ina dhex martay ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada inaga dhex saaro soomaaliya oo dhan baan u ducaynayaa soomaali ilaahay waxaan uga baryayaa subxaana wa tacaala quwaddii awooddii xooggii waxdadii kelinimadii walaalnimadii qiimihii qiyamkii ay lahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidii cadowgooda uu ka biqi jiray ilaahay ha soo celiyo subxaana wa tacaala ilaahay baan ka baryayaa subxaana wa tacaala in uu soo celiyo haybaddii soomaalinimadu waa haybad wey haybaddii inuu soo celiyo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka baryayaa waxaan idiin rajaynayaa khayra namaanin biidni illahi alkariim aquulu qawlii hada astaqfir allaha faastaqfiruuhu inahu huwa alghafuuru raxiim idinkana ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena annagana ilaahay baan u toobad keenaynaa jazaakum allahu khayran inta la dhegaysto ha hadlaan maanta ha hadlaan berri maya no never asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu